asaasaha dhiiran oo madal loogu talagalay haweenka gabdhaha dumarka Soomaaliyeed si waxqabadkooda iyo waxa ay u baahan yihiin kor loogu qaado. Dhiiran waa madal ku talagashay inay hormariso, kobciso, dhiiriso wax walba ay u qaban kartana u qabato hablaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxyaalaha ugu waaweyn aanu ka shaqeyno waxa weeyaan inaanu kobcino oo hore u marino oo dhiirigelino dhallinyarada gabdhaha Soomaaliyeed anagoo ka eegayna xagga inaanu wax ku darno tayadooda wax soo saarkooda sida oo kale gabdhaha maxaan ku raahdaayay dhaqaalaha inaanu kor u soo qaadno gabdhaha dhaqaalahooda. For example waxaan oran karaa gabdhaha iibiya caanaha oo kale ama kuwa suuqa ka shaqeeya oo kale saan ula shaqeyn lahayn si deyn bay hadiga jeer galaane deyna kana ay uga baxaan wax soo saarkoodana uu kor ugu qaadmo iyaguna ay say ma ogtahay uga midhadheliyaan waxa ay sameynayaan. Dhiiran waxaan ugu bixinay madashan waxaan aragnay gabdhaha Soomaaliyeed meel walba jooganba inay dhiiran yihiin inay ku firfircoonadaan oo ku talaabsadaan waxyaalo badan oo runtii laga yaabay aanay bay'adda iyo bulshada aanay fahmigsaneyn inay sameyn karaan. gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha halka soo gaarsiiyay dalka Soomaaliyeed wax walba waa kuwii waxaan ku raahdaayay u dhabar adeegay. Dhiiran markaa waxay na tusaysaa in gabdhuhu caqabado kasta ka gudbaan in ay hooyadu tahay ta guriga soo kubcisata nin walba maanta wax dumar ba halka soo gaarsiiyay waa hooyo waa walaal waa xaas waa gabadh u dhalay intuu isaga u shaqeeyaan si uu heer sare u gaadho. marka dhiiran waxa weeyaan gabadha Soomaaliyeed ay wax kale mid tahay waa dhiiran tahay.